صاحبيال halkan waa Milka TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaaliya farmaajo oo xayraadii ka qaaday roob la dibna ugu laabtay roob la xafiiskiisa isagoo galbinayaan kolonyo ciidamo ah waan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee Villa Soomaaliya Mareykanka oo fariin culus soo diray Sheekh Shariif oo soo hadlay iyo xasheeq oo dagaal iclaamiyay xaalka caasimadda oo sahla ciidamo ku soo socda gudaha magaalada Muqdisho Muuse Suudi oo ciidanka u badnaa diyaarsaday iyo badbaado qaran oo mar kale dib loo yigleelayo qodobadaasi ku kala eegi doonaa balse marka hore saaxiibayaal si shar gareeya muuqaalkan oo like Nasara nagu soo biiro vlogda page-keena Milka TV si aad u hesho dhacdooyinkii ugu dambeeyay guud ahaan Soomaaliya iyo caalamka waa hagaag aynu ku bilawnay Roble ayaa jibiyay xiraadii farmaajo isla markaana tagay xafiiskiisa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa ugu dambeyn jibiyay xiraadii uu saaray madaxweynaha dowladda soo dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo tagay xafiiskiisa Roble oo heliyaan taliyaasha xoogga booliiska iyo qaar kamid ah booliiska wasiirada ayaa waxay ciidamo ka marqaata farmaajo ay isku dayeen inay hor istaagaan kolonyadiisa balse wuxuu kadib lug ku galay xafiiskiisa isagoo jabiyay xiraadii la saaray ra'iisul wasaaraha ayaa muujinaya dhabar adeeg xoog leh wuxuuna haatan si caadi ah u bilaabay shaqadiisa madaxweynaha dowladda soo dhamaaday ayaa isna isku dayaya inuu shaqada ka joojiyo ra'iisul wasaaraha oo ay haatan isku hayaan arrimaha doorashooyinka xiisada ka taagan Villa Soomaaliya ka dareysa marba ka dambeeyay lamana ogaa sida ay wax noqon doonaan waxaana sii kordhaya walaac laga muujinayo xaaladda guud ee Soomaaliya sidoo kale waxa ay soo taraya baaqida kala duwan ee loo diray farmaajo iyo Roble oo laga dalbanay inay qaboojiyaan xiisada dhexdooda ka taagan haddii ay arrintu sidan ku socoto xaaladda ayaa isku bedeli karta gacan ka hadal iyada oo aad looga digayo in xiisadu halkaas ay gaarto Soomaaliya ayaa ku daahday xaaladda kala guurka ee kala khilaafka doorashooyinka waxaana haatan laga digayaa inuu dalku galo qallaas horle dhinaca kale Mareykanka ayaa fariin u diray farmaajo iyo Roble dowladda Mareykanka ayaa mar kale war cusub ka saartay xiisada tan ka taagan Villa Soomaaliya taas oo u dhaxaysa madaxweynaha dowladda soo dhamaaday iyo ra'iisul wasaaraha dalka Maxamed Xuseen Roble qoraal kooban oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya waxa marka hore fariin lagu diray farmaajo iyo Roble oo lagu baaqay in xiisada ay qaboojiyaan Mareykanka ayaa sidoo kale ka dalbaday labada dhinac inay ka fogaadaan falkicinta gaar ahaan hadallada kulkulul ee isku marinayaan warbaahinta iyo baraha bulshada sidoo kale wuxuu Mareykanku sheegay in farmaajo iyo Roble looga baahan yahay inay ka fogaadaan wax kasta oo keeni kara rabshado hor leh oo ka dhaca magaalada Muqdisho waxaan si adag ugu baaqaynaa madaxda Soomaaliyeed inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo lagu qaboojinayo xiisada Muqdisho kana fogaadaan falkicinta kana fogaadaan rabshadaha ayaa lagu yiri warka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho dowladda Mareykanka ayaa kamid ah dowladaha sida weyn u taageera Soomaaliya waxayna si dhow la socotaa xiisada taagan iyo dooda kala lata doorashooyinka Soomaaliya hadalka Mareykanka ayaa ku soo beegmaya iyadoo haatan meel xun u gaaray xiisada Villa Soomaaliya u dhaxaysa madaxweynaha dowladda soo dhamaaday iyo Roble si kastaba lama oga sida ay wax noqon doonaan waxaana xaaladdu ay muuqataa mid si cakirmaysa iyadoo maamulada dalka ay qaar la kala safteen Roble iyo farmaajo halka wali mowqifkooda uusan cadeyn galmudug iyo Hirshabelle oo saacadaha soo aadan lagu warsugayo nooca go'aan ay qaataan sidoo kale waxa soconaya dhaqaaqii ugu dambeeyay ee wadaan ciidamo ku heyba Roble oo la sheegay in Muqdisho ay ku soo wajahan yihiin dhankiisa Muuse Suudi ciidankii baad qaran iyo isugu yeeray Mirnaayo maanta waxa soo bixida ciidamo military oo ka yimid gobolka Shabeellada Dhexe kuwaas oo diyaar u ah in ay weerar ku qaadaan farmaajo kooxdiisa oo ku sugan xarunta madaxtooyada Soomaaliya dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed ayaa muddo kadib soo hadlay Shariif ayaa waxa uu sheegay in go'aanada uu qaatay farmaajo ay yihiin kuwo halis ku ah jiritaanka dowladnimada iyo xasilloonida dalka Soomaaliya sidoo kale Shariif wuxuu sheegay in dalka xaalkiisu ku jiro oo kaliya dhameystirka doorashada lagu heshiiyay go'aanada uu qaatay madaxweynaha farmaajo waxa ay halis ku yihiin jiritaanka dowladnimada iyo sidoo kale xasilloonida Soomaaliya iyo Shariif Sheekh Axmed dalkan xalkiisu wuxuu ku jiraa oo kaliya dhameystirka doorashada lagu heshiiyay lana saxo wixii qalad ah taas oo loo igmada hogaaminteeda Maxamed Xuseen Roble iyo yiri Shariif Sheekh Axmed dhinaca kale Xashiq Maxamuud ayaa isna cambaarayay tallaabo uu ku sifeeyay in farmaajo isugu dayo inuu sameeyo afgambi qoraal uu soo saaray ayuu ku sheegay in ummadda Soomaaliyeed ay soo jeedaan ay nafiijigan yihiin wuxuuna ku baaqay ilaalinta sharciga waan cambaaraynayaa afgambiga military oo isku dayay farmaajo madaxweynihii hore ee ummadda Soomaaliyeed way soo jeedaa waana fiijigan tahay waxaan ku baaqay ilaalinta sharciga dimuqraadiga ah ee dalku ku dhisan yahay iyo garab istaaga ra'iisul wasaaraha dalka yiri si dalkan loogu hirgeliyo doorashooyin lagu wada qanacsan yahay hadalka Xashiq Maxamuud ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ay sii kululaanayso xiisada Roble iyo farmaajo daawada halkan kala soo wixii warar ay ku soo kordha tan iyo